Degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa ku tallaabsanaysa horumar dhinacyo badan taabanaya. Dhanka waxbarashada, caafimaadka ayaana ah meelaha ay ka soo kabanayso degmada, walow ay ka soconayaan dhismooyin kala duwan oo degmada laga yagleelayo. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Doolow ee gobolka Gado, Aadan Barre Ducaale ayaa sharaxaya horumarka baaxadda leh ee ka soconaya ee degmada Doolow. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waxa la yiraahdaa Aadan Barre Cali gudoomiye ku-xigeenka degmada Doolow Soomaali halkaan saad u jeedtiin waxa yeelay bulkeeti tiro badan oo warshada dhaliya bulkeetiga waxa iska leh dad Soomaaliyeed oo reegad oo reer Doolow ah dadkaas oo ah u badan qurba joogto waxaan ugu talagalnay codsiga annaga sameeynay dadka jeengada iyo dhista oo geedaha tiirarka iyo dhista guro iyo jeengada sidii markii dab gaala sidii baasiinku olasho in laga maarmo oo la dhis bulkeetigan ayaga ay qiimo jaban ku siiyaan dalka iyo dadkaba lagu dhiso la horumar lagu gaarsiiyo baan ku talagalnay codsi way naga yeelan way keeneen warshada ay keeneen bulkeetigaas oo $1 ka yar bay sameeyaan degmadana ka qaadata horumarka degmada ay ka mid tahay degmadana horumar bay u gaaraysaa oo sababtay tahay waxay dhisanaysaa bulkeetigi waxa laga reysay jeengadii iyo dhistil dhisay baa laga reystay Degmada Doolow ayaa ah marin ganacsi oo ay wadaagaan dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana isaga kala goosha gaadiidka ganacsiga sida ee labada dowladood ka kala yimaada. Halkan waa buundada kala qaybisa Doolow Ado iyo Doolow Soomaaliya waa marin si weyn ay u isticmaalaan dadka iyo gaadiidka ku kala nool labada dhinac ee Doolow. Halkan waxaa ku sugan saraakiil ka tirsan hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha oo si wanaagsan ula socda dadka iyo gaadiidka iyo dadka kale ee ganacsiga doonaya ee halkan u soo tallaabaya. Maxamed Xuseen Cabdi oo ah madaxa xiriirka iyo hay'adaha ayaa dhankiisa aan weydiiyay waxa la gudboon qurba joogta ka soo jeeda gobolka Gado gaar ahaan degmada Doolow. waad dareemaysaa wadanka burbur baa ka dhacay 90koodii xilligaas oo mataqaana dad fara badan ay wadanka ka baxeen nabadgelyadiisa ay ku soo noqotay deegaamada Soomaaliland aad u adkaatay alxamdulillah rabbil caalamiin degmada hadda Doolow Soomaaliya aan joogno mashruucan ka socday mashaariicaha kale oo dhan oo dadkan qurba joogta ay sameynayaan ay deegaankoodii maalgelinayaan wax fara badan buu soo kordhinayaa waxaa lambarwanka ah hadda meeshaas waxaa nooga muuqdo mataqaana greenhouse yaanyadii iyo qudaartii martin meelahaas lagu kaydiyo oo hadhow laga yaabo mataqaana bil ama 2 bilood ka bacdi ama 3 bilood ka bacdi qudaar meel dheer ka iman lahayd in degmada iyo deegaanka dhanba in lagu faafiyo waxa sidoo kale ugu yaraan 15 kilomitir noo jirto dad mataqaana saan oo kale oo qurba joog ah oo isla fadal ah oo company meeshaas kale ah in ay beero ku leeyihiin ay ka soo jeedeen wiiga tuubooyin fara badan oo dhihi karno waa horumar aad u wanaagsan waxa kale oo mataqaana asleenahay waxay wataan warshado mataqaana dhalinaya raashinkii oo markii beeraha ay soo go'aan si looga marmo cuntadii ka iman lahayd wadanka banaankiisa marka waxaan isleeyahay arintan waxa sabay nabadgelyada dheer ee degmadan ka jirto waxaan rajaynaynaa in mataqaana deegaanada Soomaaliland iyo degmooyinka dhanba intaba inay nabad ay ku sii waarto waxaan sidoo kale aan dhiirigelinayaa dadka Soomaaliyeed ee wadanka dibadiisa jira inay imaadaan wadankooda dhistaan horumariyaan mashaariic kala duwan inay keenaan taasna aad baan mataqaana u taakiidinayaa sababtoo ah wadankan qof kale ma sugayo waxa uu kaliya u sugayo waa dadka Soomaaliyeed ee gudaha ku nool iyo kuwa banaan ku nool inay wadankooda mataqaana wax u qabtaan degmada Doolow ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ah ee gobolka Gado